kaloo ka mid ah walaalayaal alkibru watakabur, isla weyni iyo kibir. taana waa asal ahaan qofka mar walba xasadka sameynaya. xaasidka dabcigiisu mar walba inuu ahaa mid iska weynaysiin jiray qofka la xasdayo oo uu yasi jiray. markuu ilaahay nicmo iyo khayr iyo barwaaqo siiyo wuxuu ka didayaa qofkan inuu isweynaysiiyo ama darajadiisa uu soo gaaro. saa daraadeed quraysh markuu ilaahay subxaanahu watacaala nebi maxamed uu ka dhex doortay basharka, asagoo aanan madax ahayn, asagoo aabihii aanan hanti lahayn, asagoo maskiin oo agoon ah, waxay yidhaahdaan sideeba uu fadligaani dheeraadkan u helay. xiqdi iyo xasad bay ku qaaday, ayaga tilmaamaya ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamayo وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. قرآن كان ما لغو سو دجيو مد كميدة رقا واوين، مد كميدة رقا مقالوين كواوين دقن على رجل من القريتين العظيم. شفاء لروحي وحبل المتين. بلشوي بشارو warheede waa maxay bishaaradu? soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo. mid cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo. ilaan xaaji xasadkaygi baad ahayd, maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo? waa adiga boqolka qof igu dhex daraya. cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka, waalida, ceedo wareerka, umusibyaanka, gabdhaha wejiga ka halaabay, baabasiirka, dhagaxa kiliyaha gala, xoojinta raganimada, isha, dhiigkarka, sokorta, naxdinta, kili xanuunka, waswaaska, madax xanuunka, jinka, dhalmala'aanta dhasha allah bixiye, toobinta iyo kuwo kale oo fara badan. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولا ليال إن شاء الله تعالى كليب كان وحندوني بإذن الله تعالى ما دام دروستي مسلسل كحسد كانوا كسو هدليني إن إذن كل وذاقو أرمها أسبابها أما حالها حقدها أما حسد ككينة. ولا ليال علماء المسلمين waxay tilmaameen ilaa 7 arrimood inay sabab u tahay in qofka muslimka xasad qalbigiisa galo. 7 arrin waxaa ugu horeysa walaalayaal alcadaawatu walbaqdaa. alcadaawatu walbaqdaa, qof aad colaytan isu haysaan ama aad u caraysan tahay. qofkaasi waxaa laga yaabaa inuu kaa mabda' duwan yahay, waxaa laga yaabaa inaad dulmisay, waxaa laga yaabaa xaaladaha ka mid ee adduunka inaad isku qabataan. taa marka waxay keensanaysaa qofkan in qalbigiisa uu galo xiqdi, cadaawad iyo caro. taa marka waxay keensanaysaa inuu kugu xasdo qofkaasi wax walba oo wanaag aad helayso, inuu kugu xasdo, uu ka xumaado, wax walba oo xumo kugu dhacana uu ku farxo. taana ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa ayuu ku tilmaamayaa ahlu kitaabka iyo munaafiqiinta. ilaahi subxaanahu watacaala mu'miniinta inay cadaawadii colaytan u qabaan. xasadkuna mar walba labadaa sifo wuu laasinsadaa, cadaawad iyo waxaa weeyaan iyo caro. ilaahay ahlu kitaabka wuxuu ku tilmaamayaa wadda aladiina kafaruu min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim. ilaahay wuxuu leeyahay in badan oo ahli kitaabka ka mid a waxay jeclaan lahaayeen iimaankiina kadib inay gaalo idin celiyaan, aad gaalo noqotaan, xasad naftooda ka ahaatay. munaafiqiintana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamayaa waidaa laquukum qaaluu aamanna waidaa qalow caduu calaykum alanaamina min alghayd qul muutuu bigaydikum. wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala isagoo munaafiqiintana ka hadlaya, markay idinla kulmaan waxay leeyihiin waan rumaynay, markay gooni u baxaanna munaafiqiinta faraha carada ayay idin qaniinayaan. ilaahay wuxuu tilmaamayaa qul muutuu bigaydikum, waxaad tidhaahdaan ku dhinta caradiina.
marka sababtooda waxaa weeye ilaahay baa tilmaamay qofka markii cuqdada qalbigiisa ay gasho laba sifada qalbigiisa ay gasho dabcan wanaagaagana wuu nacayaa xumahaagana wuu ku farxayaa ilaahayna quraankiisa wuu ku tilmaamay in tamsaskum xasanatun tasu'hum وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إلهي وحوت المامية هذي وناق إذن تابتنا ويكحمانيا هذي دب إذن كدعنا ويكفر حيان سيدوك الإلهي آياتك لو حكوت المامية ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم أما تخفي صدورهم أكبر وحيجي على استنقالضوا يا منافقين تبا وحاوي وحايدين لبيو قد بدت البغضاء من أفواههم عرضنا أفكوذا أي كموقتا وما تخفي صدورهم أكبر وحي لا بها كقرصنيانا أي كوين وحقد أي حسد قضب كلابات ولا ليال أسبابها حسد كينا وحاكمي ولا ليال التعزز قفك إنو إسشرفه أرين كان وحي كل عذاب dad mathalan sinaa oo aqraan ahaa ama laba saaxiib ama jamaaco iyo wixii lamid ah in qayb ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala fadli iyo dheeraadii nicmo inuu siiyo sida inuu madaxtinimo u dhiibo ama cilmi ama maal wama ila dhalik walidaalika qaybtii soo hartay ama qofkii soo haray uma dulqaadan karo arrinkaa inuu aqbalo mar walbana wuxuu difaac uga jira maadaama ilaahay fadliga ay dheeraadkaa siiyey qofka qalbigiisa waxaa galayso ninka si walbuu kula dhaqmo waa nooc kibir ka tarjumayo yani qalbigiisa waswaas lagu furaya qofkii haddii wanaag ay isku ogaayeen ama dad wax is amra oo masaaxiib ahaa ninkan kullama kelmad la dhaho ama wax loo diro ama arin wuxuu leeyahay ninkan maadaama nicmada ay dheeraadka la siiyey waxaan wuxuu ku amrayaa waa nooc kibira marka difaac buu mar walba isaga jira ninka marka ciladiisu waxay tahay wuxuu jecel yahay nicmadan inay tagto aad sinaataan nicmadan marka ay tagto aad sinaataan caadi buu noqonayaa marka taana waa sifaadka waxay ka mid tahay asbaabaha keena xasadka waxaa kaloo ka mid ah walaalayaal alkibr watakabur isla weyni iyo kibir taana waa asal ahaan qofka mar walba xasadka sameynaya xaasidka dabcigiisu mar walba inuu ahaa mid iska weynaysiin jiray qofka la xasdayo oo uu yasi jiray markuu ilaahay nicmo iyo khayr iyo barwaaqo siiyo wuxuu ka didayaa qofkan inuu isweynaysiiyo ama darajadiisa uu soo gaaro saa daraadeed quraysh markuu ilaahay subxaanahu watacaala nebi maxamed uu ka dhex doortay basharka asagoo aanan madax ahayn asagoo aabihii aanan hanti lahayn asagoo maskiin oo agoon ah waxay yidhaahdaan sideeba uu fadligaani dheeraadkan u helay xiqdii xasad bay ku qaaday ayaga tilmaamaya ilaahay quraankiisa uu ku tilmaamayo وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم قرآن كان ما لغو سو دجيو مد كميدا رقا واوين مد كميدا رقا مقالوين كواوين دقن على رجل من القريتين العظيم نوينه أو مضحة أو لبدا مقالي واوين مركز أما طائف أما مكدقن ورقي مضحضيها أو سلاطينتي ما لغو سو دجين واي ومحا عنقان مسكينك agoonka oo faqiirka maxaa loola doonay sidoo kale ilaahay wuxuu tilmaamayaa quraysh asxaabta nabiga dadka ugu horeeyay raaca waxay ahaayeen fuqaraa unnaas marka ayagoo marka ku jeesjeesaya waxay leeyihiin ahaulaa'i manna allahu calayhim min baynina ma kuwan buu ilaahay subxaanahu watacaala dhexdeena ka doortay oo ilaahay gallad siiyey taana waxay ka mid tahay sifaadka xiqdiga iyo xasadka keena sidoo kale walaalayaal waxaa ka mid ah atacajub qofka layaab shay inuu layaab iyo gariib ku noqoto ayaa keenay in xasad uu qalbigiisa ku dhasho
ilaahay isagoo arrinkaa ka warbixinaya ummadihii hore markii ambiyadoodii loo soo diray oo bashar ayagoo kale ah way la yaabeen in ilaahay agtiisa oo bashar idinkoo kale laidiin soo diro arrin la yaab waayo bay dhahay ma antum ilaa basharun mithluna walain atactum basharan mithlakum inakum idan la khaasiruun أبعث الله بشرا رسولا لولا أنزل علينا الملائكة آيات كاسودن waxay tilmaamayaan إله سبحانه وتعالى sidoo bashar u soo diray maxaa malaa'ik noogula soo diri waayay yani tacajabu waxaa kaloo ka mid ah walaalayaal alkhawf min fawaati almaqaasid almaxbuuba qofka inuu ka cabsado الخوف من فوات المقاصد المحبوبة إنه كعب صدقك إني دايفتو مصالح أما مقاصد وجعليها تانا بدنا waxay ku imaataa dadka hal maslaxa ka dhaxaysa oo u loolamaya oo tartanka ugu jira sida hablaha iyo dumarka la isla qabo sida arday meel wax ka wada baranayso sida walaalo loolan ugu jira waalidka qalbigiisa inay hantaan iyo wixii lamid ah sida culumo hal balad ama hal magaalo ka soo wada jeeda oo u tartamaya magaalada qofkii hogaankii diimeed qaban lahaa wama ila dalik sidoo kale walaalayaal waxaa ka mid ah حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه qofka waxaa weeye madaxtinimo inuu jecel yahay naftiisa mar walba sharaf iyo jaah uu la dalbo ama uu naftiisa la raadiyo taana waxaa weeye nin ku takhasusay farsamo ama cilmi ama miisa uu gaar leeyahay hadday noqoto cilmi hadday noqoto ama hadday noqoto farsamo ama hadday noqoto sifo ama geesinimo wama ila dalik ninka marka daa'iman wuxuu jecel yahay sifada iyada ah inuu la gooni noqdo wuxuuna aad uga didayaa qof asagoo kale ama sifadaas oo kale leh inuu soo baxo oo sifada uu la wadaago marka mansiladaas wuxuu rabaa yuriidu an yatafarrada bih inuu la gooni noqdo ayuu doonayaa marka hadduu maqlo adduunka koonihiisa waxaa ka soo baxay qof sifadii noociisa oo kala wata ninka wuxuu jeclaysanayaa qofka inuu dhinto uu baaba'o si uu arrinka ugu gooni noqdo taana waxaa weeye xubu ri'aasa wa talabu ljaahi linafsihi waxaa kaloo ka mid a walaalayaal qodobka 7 waa khubthu nafsi وشحها بالخير لعباد الله تعالى قفكو أسالة نفتيسة نفح وهذا بخيل يعني بخلق درجات كيس أسقى كلا درجات له النوع وقدرا وشحها نفتيسة كسي فيسا معنى هذا وحاول يقفكو مروا الباء ومقلو خير إيا برواقو إلهي أدو مذي سلو نعمية هذا كفو قاداني وحبا يسن كدحينيني وأنكحماني haddii uu maqlo dad baa busaarad ku dhacday ama balaayo ku dhacday ama hantidii ka baaba'day ama dhib gaarani wuu isaga farxi marka ninkaasi waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa nicmada uu siinaya buu ka xun yahay yani ilaahay khayrkii wuu ka xun yahay yani ilaahay khayrkiisa waxa la siinayo oo ilaahay xaggii ay uga imaanayaan waaba ka xumaanaya marka ninkaa xaaladiisu waa un xaalad dabci wuxuu leeyahay yani aad u liita waa khubthu nafsi wa radalatin fi dabci weeyaan marka walaalayaal sifaadkaasi waa sifaadka 7 ee culummadu ay ka yiraahdaan xasadku ay sabab ayuu u noqdaa xasadkuna walaalayaal ma fiicno macnihiisuna waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaala xukunkiisa iyo qadihiisa iyo xikmadiisa baaliqa ah ilaahay subxaanahu watacaala dunidan ku maamulaya ilaahay inaad ka hor istaagto maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay alaa yaclamu man khalaq wahuwa allatiifu alkhabiir ilaahay miyuusan ogeyn addoommada uu abuuray ilaahay addoommada markuu kala fadilayo ama khayri dheeraad uu kala siinayo ama midna uu khadinayo midna la siinayo waa xikmad baa meeshaasi ku jirta ama aad haleeshid ama yaadan haleeline xikmadda ilaahay subxaanahu watacaala waa inaad u daysaa ilaahay subxaanahu watacaala xakiim weeye saadaraad ninkii shaacirka ahaa wuxuu lahaa yaa xaasidan lii calaa nicmatin
أتدري على من أسأت الأذب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض ما وهب، فأخزاك الله ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. كشاعرك وحليه متك إيقو حاسد يو نعمة إلهي إسيي مقراني ساعدة أحد أقفت إلهي سبحانه وتعالى حكم كيس هاي لرالك من نقن إلهي وحو إيه بيي ما دام هذا الرالي كنقن إلهي وحو عقابك قدق إنو كوهو جيو إلهي خيرك برواقد إنو إيزياديو أدوغنا بؤسك إيه برزاردنا أكوغو سياديو ما دام حاسد أتح مركا حانو لينهاي حسدك إيه حقدك ولا ليال مفيعنا dhibaatooyin badan buu leeyahay. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa qalbigeena inuu ka ilaaliyo, ilaahay uuna waafajiya khayrkii wanaaga, annagoo ilaahay subxaanahu watacaala qalbi nadiifna maalinta qiyaama ilaahay aan la kulanno, maalinta uu ilaahay uu ka leeyahay yawma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim. هذا وبالله توفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.